Tobanka qof ee ugu nasiibka badan kana badbaaday shilal halis ah. Daawadayaal, maanta waxaan ka hadli doonaa tobanka qof ee ugu nasiibka badan kana badbaaday shilal halis ah oo nafsadooda galaafan gaaray. Ninkan baaskiilka wata wuxuu doonayay inuu wadada dhanka kale u gooyo, balse waxaa si kedis ah wadada uga soo beeray gaari weyn oo xamuul ah, wuxuuna ku dhacay ninkii iyo baaskiilkiisii. Baabuurka ayaa gabi ahaanba dul maray ninkii, balse sida la yaab kale ee ninkan u badbaaday ayaa ah in aysan marin lugaha baabuurka oo uu ku beegmay halka u dhaxayso lugaha gaariga. Ninkani waa nin sawir qaade ah, wuxuu ku sigtay inuu naftiisa u waayo si uu u qaado sawir qurux badan. Diyaaraddii uu sawirayay oo jawi aad u hooseeya ku socotay ayaa iskama jirsatay inay madaxiisa dul marto. Cagaftan buurta dul saaran waxay soo riday dhagax aad u weyn si ay ugu tuurto dhulka, balse dhagaxa oo si lama filaan ah u soo taraaraxay ayaa galaafan gaari yaalay waddo u jirta cabbaar buurta. Ninkan isagoo wadada taagan oo samaha faraha sugaya ayaa waxaa kusoo dul dhacday bir xajmigeedu aad u weyn yahay oo gabi ahaanba gaarigiisii burburisay, balse arrinta la yaab kale ayaa ah inuu badbaaday darawalkii gaariga waday oo aysan waxba gaarin. Gaarigani wuxuu si xawaare sare ah ku gooyay wadada tareenka, balse wuxuu ilbiriqsiyo u jirsaday inuu tareenku gabi ahaanba dul maro. Jabalka buurtan waxaa si kedis ah ugu soo dhacay dhagax aad u weyn, balse ninkan oo isku dayay inuu ka cararo dhagaxa ayaa iskama u jirsaday inuu ku waayo naftiisa. Ninkan iyo naagtan dalxiisaha ah waxay iska soo tuureen diyaaradoodii iyagoo baarashuud adeegsanaya, balse waxaa si kedis ah ay ugu dhici gaareen diyaarad kale oo iyana hawada ku jirtay. Wallaahi kuwan waa nasiib badan yihiin. Gaarigan haddii aan sida dhaqsiyaha ah looga wareeji lahayn birta, waxaa gabi ahaanba dul mari lahaa tareenka isaga iyo dadka saaranba. Ninkan wadada goynayay wuxuu iskama u jirsaday inuu naftiisa ku waayo ama uu dul maro gaari bas ah oo soo fariin goostay soona dardaray baabuurtii kale ee samaha faraha sugaysay. Labadan nin waxay hortaagnaayeen dukaan ku yaalla wadada dhinaceeda, balse gaarigan oo si kedis ah wadada ugu soo baxay ayaa wax yar u jirsaday inuu labadoodaba raafo. Ninkani shoppingkiisa ayuu iska soo samaystay, wuxuuna ku socday marshabiyoodka wadada, balse gaarigan raaxada oo gaariga kale si kedis ah ugu soo dhacay ayaa ku yimid isagoo godgodoomaya, wuxuuna sabab u noqon gaaray inuu naftiisa ku waayo.